moogtahay in GB WhatsApp-ka statuskiisa lagu soo kordhiyey inaad soo dhigi karaysid cod. Assalaamu calaykum, magacaygu waa Cabdirashiid. Maanta waxaan ka hadli doonaa farsamooyin lagu soo kordhiyey GB WhatsApp-ka oo version-kiisu yahay 17.20. Farsamada koowaad runtii waa farsamo aad u cajiib ah oo weli WhatsApp-ka lagu arag amba GB WhatsApp-ka, taasoo aad statuskaaga soo dhigi karaysid cod, isla markaa aad intaad qoraal dheer qori lahayd aad ku soo koobi karaysid statuskaad soo dhigaysay cod 30 sekina. Haddaba si aad u soo dhigtid statuskaaga cod, waxaad tegi doontaa statuska. Markaad soo tagtid, hadda waxaad arkaysaa in lagu soo kordhiyey buttonka codka, kaasoo aad codka sa u xijin doontid, isla markaana aad halkaa cod ku duubi karaysid cod gaadhaya 30 sekin, isla markaana aad post odhan karaysid. Farsamadeeda labaad waxaa caqabad nagu han jirtay in marka aan WhatsApp-keena isticmaalno amba aan ku jirno statuska, inagoo doonay inaan wax soo dhigno ay gacanta inaga dhacdo qoraal amba sawir, isla markaana automatically isku soo dhigo. Haddaba GB WhatsApp waxa lagu soo kordhiyey marka aad sawirka soo dhigsid, waxaad arkaysaa inuu kuu saaray calaamadan, taasoo ah inaad confirm garaysid inaad soo dhigi kartid sawirkan iyo inay gacanta kaaga dhacday. Isla markaa haddii aad doonaysid inaad soo dhigtid, aad okay ku dhufan doontid, uu si toos u soo geli doono statuskaagi. Haddaba si aad farsamada u furatid, waxaad tegi doontaa GB setting-kaaga, isla markaa aad ka tegi doontid home screen. Markaad home screen ku dhufatid, hadda waxaad arkaysaa meel ay ku qoran tahay confirm before sending status. Adoo tigta saari doona barta, isla markaa kadib kuu furmi doono inaan automatically soo dhigi karin statuskaaga ilaa aad okay ku dhufatid. Farsamada saddexaad ee lagu soo kordhiyey GB WhatsApp-ka waxaa caqabad nagu han jirtay markaan isticmaalno GB WhatsApp in haddii aan sawir u forward garayno qof aan doonayno inaan raacino hadal amba qoraal, aan forward garayno qofkaanu diraynay inuu kala hari jiray sawirkii iyo qoraalkii. Haddaba GB WhatsApp-ku uu xaliyey caqabadiina haysatay. Haddaba haddii aan forward garayno sawirkan aan ku qorno qoraal, isla markaa inuu dirno qof kale, waxaad arkaysaa hadda in si toosa ay isku raaceen qoraalkii iyo sawirkii, isla markaana aanay kala hadhin. Haddaba daawade, ka ayaad isticmaashaa GB WhatsApp iyo WhatsApp-keeni caadiga ah, adigoo nagula wadaagi doonaa commentiga.